madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho degdeg ah waxa uu ku gaaray dalka Turkiga waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyadoo la filayo in wadahadalada labada hogaamiye inay ka soo baxaan heshiisyo hor leh oo dhinaca difaaca la xiriira waxaa la filayaa in marka ugu horeysa Turkiga uu keeni doono Soomaaliya boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee Turkiga oo ka barbar dagaalami doona ciidanka Soomaaliya si ay markaasi gacan ugu siiyaan Soomaaliya howlgalka socda ee la dagaalanka Al-Shabaab. ciidamada Turkiga ee imaanaya Soomaaliya ayaa adeegsan doona teknoolojiyadda iyo agabka military ee ciidanka Turkiga oo noqon kara tiradii ugu badneed oo ciidamo ka socda dal ka tirsan NATO oo howlgallo toos ah ka fuliya gudaha Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa sidoo kale door istiraatiijiyadeed iyo mid military oo toos ah ku yeelanaysa la dagaalanka Al-Shabaab waxaana badan suurtagalnimada saldhig wadajir ah oo ciidamada Soomaaliya iyo Turkiga ay ka howlgalayaan in laga hirgeliyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo hadda xudun u ah dagaalka socda ee u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. waxaa kor loo qaadayaa tirada ciidanka militariga ee Soomaaliya oo tababaro cusub loo furi doono halka si degdeg ah loo soo celinayo ciidanka tababarka ku dhameystay gudaha Turkiga sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen diblomaasiyiin u dhuundaloola arrimaha militariga iyo siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale la filayaa marka uu soo gabagabeeyo socdaalka uu haatan ku jooga dalka Turkiga inuu ku dhawaaqo go'aano markaasi xaalad degdeg ah gelinaya dalka Soomaaliya si loo horumariyo la dagaalanka ama dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.